cabdi cali seed oo ah gaashaan la dhexe oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sida ehelkiisu inoo sheegeen la daldalay kadib markii culeysyo badan ay soo saareen saraakiil asiga ka sareysa marxuumka geeriyooday ayaa waxaa lagu wargeliyay guri oo ka degnaa xerada Sheelare in uu ka guuro deeqa yaasiin oo ah xaaska marxuumka geeriyooday oo warbaahinta la hadashay ayaa ugu horeen sharaxaad ka bixinaysa dhacdadan iyo sida ay u dhacday magacayga deeqa Axmed baa lahaa waxaan ahay marxuumka meeshaas yaaladu qabay xaaskiisii baan ahay carruurtiisii waa kuwaana sargaal booliska buu ahaa oo gaashaan la dhaxa ah meeshaan baanu deganay deegaan ku ahayn waxaana ku wargeliyay shalay in la yiri dhulku waa la duminayaa maxaad uga bixi weysay wuxuu yiri taliyaan meelan aaday meelan aan garanayo ma jirto haddaadan bixin wuxuu yiri waan ka duminayaa dumiyuri talanshano shaqada kuma qabsanaaye waa la wacay xafiiska waxa laga wacay guud xafiiskii buu tagay waxa lagu yiri soo xukayn baa loo soo dirayaayo guddi baa loo saaranayaa oo guriga ku laabo xalay 3 saac baanu kala seexanay koortii aan seexanay 5 saac ma ka seexanay naga koortii aan seexanayna saakadan soo baxna 2 saac bar la marayo meedkiisa wax xardhiisa lagu arkay ciidanku baan tusay meesha jooga waana la diray qof isagu waalan ama wax cudur qabay midna ma uu aha qaarkoodna waxay magaalada galiyeen ninkan waa laayay mooto ay jugsiisay mooto jugsiisay way jirtaa laakiin ma waaleen wax cudurna ma uusan qabin nin reeriisa dhaqanayo shaqadiisa aadayo dantiisa yaqaan waa mar kale deeqa yaasiin oo ah xaaska marxuumka geeriyooday ayaan weydiinay xilliga ay arkeen meedka marxuumka iyo halka ay ku arkeen culayska jirana de ilaahay baa garan kara inta uu leeyahay marka wax isdalaad lama jiraan waa in la dilo si uu la kaca loo dilay wixii dilana waa lagu daba jiraa waan la raadinayaa isaga xalay 3 saac telefoon loo soo diray waxa lagu yiri waa lagu dacweynaa isagana waa la dacweynaya waa la xirayaa gurigana waa laga duminaya ilmahan waa lagu leynayaa meedkan saaka 2 saac barbaan aragnay xirada dhexdeeda ku aragnay arkiisan xaal noocay ku sugnaa qof isdilay maya wuu labisnaa geedka sartiisa oo labisan diriiskiisa qaranka labisan ayaa geedka meesha dhakada isaga u sareysa soo ku xirxiran baan ciidankuna tusay dheena abiina meed halkaas yaalan la ku wargeliyay anigu wadiyada waa dareemi kartaa maama la yiri ninkaadii baa dhintay iyo ilmaha abooda dhintay la yiri waa dareemi kartaan qalbigooda iyo waxyaabaha gaari kara anagu qalbiga ma helin fursad ma helin dhanka kale mid kamid ah maamooyinka xerada Sheelare hore u degnaa ayaa dhankeeda iyadana sharaxaad ka bixinaysa dhacdadan iyo siday u aragto maamooyinka dariska ah meesha laga rarayaan ahaa dariska ugu dhow ayaan ahaa wiilkan dhimanaya annaga habeen hore ayaa odayaashayada lala soo hadlo waxa la yiri shaqada ayaad ku weynaysaan hadii aadnan meesha iska guuran oo aadna carruurta aadnan raran shala subax weyna rareen odayaashaydiina raray asagoo nabad qabo caafimaad qabo halka fadhiyo gurigiisa iridiisa aniga qof iiga aragti dambeysay ma jirto anigaygan halkaas u fadhiyo markaan gaariga halka kala baxay wax cudur iyo wax balaayana ma qabin marxuumka dhintay ugu dambeyn waa kan mid kamid ah ehelka marxuumka geeriyooday oo dawladda Soomaaliya ka codsaday inay cadeyso cid dishay marxuumkan waa in adeerkeen waxaan ka rabnaa dawladda Soomaaliya si degdeg ah saacadan oo 7 saac oo maalin jimcaha meedka qorraxdu yaala dawladda Soomaaliya waxaan ka rabnaa cid dishay marxuumkaas si degdeg in loogu soo cadeydo Cabdirashiid Sandheere raadiyaha iyo telefishinka SBC Muqdisho